video sawir blah blah waxa la sheego okay let me tell you something ninki inaagta isqabo horta wax ma kala qarsan wax ka soo isku arkan Soomaa sawaran iska qaadnay video isku dugnay everybody knows even ata markii oo brank lagu sameeyay oo cuntada sariirta lagu keenay all that la sameeyay waa daawanaysan shoo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ذا قيمة يقدرني نجا مدنو ملك استوى دافع دوني ذاك السوينتين هلا كستيني تابو وعنو وناكسي هذا تأكلن كأجور يتصاب بقطة شنك فرحان يدفع الله المؤمن سبسكرايب تناصر تصير شير كري سولك تناصر مركز نحر كذا الكسب بقطة فضله المؤمن أتكم أنت عارف ما تقول وحي فكر كاجا نقول السو ذاك أيوه وحي عصب نجور يسوي واحد ما قشنا كفيرسو أنت براها بلشة المعلمي لصودا في سيدا وين وهاي ستيمونا يا بوس باس ayaa hadaba boss baas ayaa ka jawaabay eedeymo loo soo jeediyay kuwaas oo ay kamid ahaayeen boss baas dagaal ku soo qaaday guriga Muna hadaba boss baas ayaa sheegay haba yaraatay inaanay jirin wax dagaal ah isagu soo qaaday alaab guriga ka taalay uu soo doontay uu la kulmay waliba mushkilada iyo xadhig hadaba boss baas ayaa sheegay dhankiisa hadana inay jireen muuqaalo la soo duubay kuwaas oo uu ka hadlay iyagana hadaba bal أنا كلا بروح هذا الكبوس باس بليلة دعوة هذا جي ألعبتيد إنهم كسوقاتو مركو جرد أنت نقلو هرتا عنده علاوة بربرنا يوحد جيبنا أنا أود أسمله because جرد جي جماعة مركا Boss Baas sida uu dhigmaa bawad soo wada dhageysateen Boss Baas ayaa yiri waxa awood u maleeyay intaan guri reer soo galay inaan sidaan doono ka yeelo alaab ayaan soo doontay alaab kale oo aanu hayay reerkana waan u geynayay waxaaskiisii hore Muna halkaas oo aan mushkilada kula kulmay hadaba muuqaalo aan iska duubnay intii ay xaaskayga ahayd ayaa baraha bulshada la wareegayaan in iyo xaaskiina waxay doonaan bay sameyn karaan sidoo isagu hadalka u dhigay dad ayaa jiray uu yiri baraha bulshada isticmaalo waliba siyaabo khaldan u soo gelinaya sawiradayada iyo fiidiyowyada hadaba waa inay wax walba runta ka sheegan waliba si cadaalad ku jirto iyo walaaltinimo iyo Soomaalinimo inay haday doonayaan inay ka hadlaan arintayada ay si wacan uga hadlaan balse aanay jirin sabab inay dhinac kaliya ay u wada bataan hadaba Boss Baas ayaa qiray ama sheegay inay Muna kala tageen markii uu calafkoodu soo dhamaaday hadaba waceedeyma oo muujeedin iyo wax ay toon halka ay dadku waxyaabo khaldan isla dhax qaadayaan kuwaas waanu doonaynaa inaan dadka nagu xidhan inaan dhagahooda ku ridin ama aanan uba sheegin hadaba waxa uu sheegay dadka propagandada wada iyo waxyaabaha ku tiri ku teenta inay iska dhaafaan xaqiiqadana ay ka hadlaan waayo ma jirto buu yiri waxyaabo annaga soo kala dhaxgalay balse khilaafkana soo kala dhaxgalay ayaa calafka Ilaahay kaasina wuu soo dhamaaday hadaba dadka baraha bulshada isticmaalaya waxaan u sheegay inay siyaabo khaldan ay u adeegsanayaan sawiradayada iyo waliba muuqaalka halka uu sheegay inay hadda Muna ay kala boqoleen oo ay kala tageen hadaba waxa uu ka hadlay muuqaalkan baraha bulshada la wareegay siyaabaha khaldan loo adeegsanayo hadaba dadkan baraha bulshada caanka ka ah siyaabaha khaldan u faafinaya fiidiyoyada Muna iyo Boss Baas kuwaas oo ku raadinaya waxyaabo kale hadaba Boss Baas ayaa ku soo celceliyay oo sheegayna hadii ay jirto buu yiri muuqaalo xumaan iska duubnay inaad qariso mooyina soo bandhigto ma wax banaanba waa sidoo isagu hadalka u dhigay waxa uu eedeymo u soo jeedinay dadka YouTuberada waliba qaar caan ah oo aan sheegayn magacyadooda kuwaas oo ku soo halqabsanayay in hadallo been abuur ay ka faafiyeen kuwaas oo ay dhaheen waxbaanu ka duubanayna ama waraysiyaanu ka qaadayna oo aan ka diiday oo aanu sheegay inay tacsiyi taalo siyaabo kale oo aan ugu diidayna aanay jirin hadaba waxa uu ka hadlay xadhigiisa iyo waxyaabaha sababay waxaana uu sheegay inuu alaab u soo doontay guriga Muna halkaas oo booliiska looga wacay shirqoolo loogu maleegay sidoo isagu hadalka u dhigay qofna janana seexin maayo qofna
wanaag ka heli mayno waayo balse waxyaabaha xaqiiqada ah ee Ilaahay nagu ogyahay sida uu isagu hadalka u dhigay aan doonayna inaan u soo gudbino dadka nagu xiran ma jirto qof lacag nagu siiyay ama qof aan dhinaciisa taageerayna balse wixii noo muuqday iyo sida ay nala tahay ayaanu doonayna inaan ka hadallo haddaba adigaagan daawanaya waxaan ka codsanaynaa inaad comment-iga ku soo qortid waxyaabaha ay kula muuqato arrintan maalmihii la soo dhaafay ayaad moodaa baraha bulshadu inuu maxkamad noqday waayo labadii qof ee is qabta ma family ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad xiriir ka dhaxeeya waxa ay soo dhaxdhigaan baraha bulshada kuwaasoo siyaabo qaldan ay dadka wax makaratada ay uga falcelinayeen haddaba Boss Baas oo af Soomaaligu dhibay inta badan oo ku hadla luqadda Ingiriishta ayaa hadallo badan ka soo jeediyay halka uu YouTube-ka ku leeyahay ee Boss Baas ka soo sheegay inuu halka ay kala socon doonaan dadka ku xidhan haddaba Boss Baas ayaa sheegay haba yaraatee inaanay jirin imika wax xadhiga uu ku jira haddaba dad badan oo baraha bulshada isticmaala ayuu eedeymo u soo jeediyay kuwaas oo ka been abuuray hadallo ku tiri guteena la wareegay baraha bulshada halkan ugu eedeymo uga jeediyay sheegay in Ilaahay ka baqaan xaqiiqada iyo wixii og yihiin ay soo tabiyaan haddaba Boss Baas ayaa hadalladiisa ku soo celcelinayay haba yaraatee inaanay jirin wax isaga kulida ama wax jirdil oo loo geystay haddaba waxa uu sheegay inay jiraan dad wax magarata oo sawiradiisa iyo fiidiyowyadiisa siyaabo khaldan u soo adeegsanay kuwaasoo baraha bulshada soo gelinaya wuxuu si adag uga hadlay muuqaalkii baraha bulshada wareeriyay maalmihii la soo dhaafay kuwaasoo dadku qaarba dhinacay u qaadayeen haddaba waxa uu sheegay inay munaxaaskiisa ahayd in xaaskiisuna waxay doonaan ay samayn karaan waayo waxa isku haystaan kalsooni iyo weliba jacayl iyo weliba wanaag haddaba waxa uu sheegay inuu calafkoodii soo dhamaaday iyo wanaag iyo jacaylkii dhex yaalay haddaba ay munitahay gabadh kale aan xaaskiisa ahayn sidoo hadalka u dhigay dadka ku tiri ku teenta wada hadallada been abuurka baraha bulshada isla dhex qaadayeen inay iska daayaan waxyaabaha qaladka ah ee ay faafinayaan haddii ay doonayaan arrinta daacad ka noqdaan inay si wanaagsan oo walaaltinimo iyo wanaag iyo xushmad iyo dhaqan wanaag ay ku jiraan ay u galaan haddaba waxaanu ka codsanaynaa dadyowga caanka ee iyagu magacooda meel sare gaadhayo in ay dadkan baraha bulshada isku xagan ama isku haysta inay soo kala dhex galaan oo waliba ay si wada hadal walaaltinimo iyo wanaag ay ku jirto ay ugu dhameeyaan hadda waxa baraha bulshada haysta waa muna iyo waliba fanaanada iyadana la yiraahdo Igraan Xarrago kuwaasoo eedeymo iyo waliba dhaliilo isu soo jeedinayo kuwaasoo baraha bulshada isu marinaya kuwaasoo sawiro iyo waliba muuqaalo soo gelinaya baraha bulshada haddaba dadyow ku xiran waxaanu sheegaynaa in ay ka tigtoonaadaan dadkana ay si walaaltinimo u dhexdhexaadiyaan waliba dadka ka ag dhowdhow iyaga labada dhinacba saaxiibka la inay arrinta galaan oo si waan iyo walaaltinimo iyo wanaag ay ku dhameeyaan dadka baraha bulshada siyaabaha khaldan u soo gelinayaan in iyaguna Ilaahay ka baqaan oo iska daayaan waxyaabahan aan wanaagsanayn ee ay soo gudbinayaan waayo waxa ku xiran dad cuqaal dhalinyaro iyo waliba waxgar dad ay dhagahooda ay ka daayaan iyo waliba waxyaabaha shaaxdarada ay soo gudbinayaan dadka ku xiran waliba hadallada runta wax walbana ay dhexdhexaad ka noqdaan haddaba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo celinaynaa dadka ka ag dhowdhow labada qof in ay dhexdhexaadiyaan iyo waliba fanaanada Igraan Xarrago saddexda qof oo imika baraha bulshada haysta maalmihii la soo dhaafay dad badan oo wax makaratada ayna hadalladooda ay midba dhinac u jahaynayaan haddaba maalmihii la soo dhaafay ay si weyn u qabsadeen baraha bulshada saddexda qof oo waliba hadallo turxaan leh iyo hadallo xunxun ba isu marinayaan baraha bulshada haddaba dadka naga magaca dheer leh iyo waliba u dhawaaqooda meel sare gaaray haday fanaaniinta ay haday abwaanata iyo jilayaashuba in ay si xushmad iyo walaaltinimo ay ku jirto ay u dhexdhexaadiyaan dadka soona dhex galaan waliba ay soo afjaraan khilaafka ka dhex taagan saddexda qof ee walaalaha aan waxba isku hayn baraha bulshada siyaabaha khaldan dadka wax makaradada ay soo gudbinayaan iyaguna waxaan leenahay dadka inay ku xiran ee jecel ka daayay dhagahooda waxyaabaha khaldan ee ay soo gudbinaysaan
waayo waxaad raadinaysaan waa wax xaaraana adaba intay video la mid ku kulmayna waxaan iga tagay anigoo muumin aburaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh